waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Hubaal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah Villa Soomaaliya oo shaacisay inay dhinteen qaar kamid ah dhalinyaradii loo qaaday dalka Eritrea Cali Guudlaawna waxa uu ku dhawaaqay dagaal xilli uu dib ugu laabtay Jowhar iyo waxaad maqli doontaan IGAD oo war cusub ka soo saartay colaadda sii huraysa ee u dhaxaysa dalalka Suudaan iyo Itoobiya qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Hubaal News fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada ee wararkaanu ku baahina janalkan aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii sheer gareeya laagtiinana waa inoo muhiim haatanna kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo marti ku ahaa barnaamijka baxaya TV-ga Soomaali Cable ayaa si cad u sheegay in qaar kamid ah dhalinyaradii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ay siyaawooyin kala duwan u dhinteen Cabdikariin ayaa intaasi raaciyay in dhalinyarada dhimatay waalidiintooda ay akhbaartu gaartay isagoona ballan qaaday in waalidiinta aanan helin xogta in wiilashoodii dhinteen uu isaga siin doono waxaan ku qorayaa lambarkayga ee ila soo hadalsii waalidka ee wiilkiisa dhintay warka heenin aniga xogta siinaya ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo qof su'aashaasi weydiiyay uu jawaabay barnaamijkan oo ahaa mid su'aalo lagu weydiinaya afhayeenka ayuu sidoo kale ku shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay ku hoolantahay sidii dhalinyaradaasi dib loogu soo celin lahaa dalkooda mar la weydiiyay su'aal ahayd in lacag dhan 50 milyan madax furasho loogu haysto dhalinyaradaasi ayuu ka meermeeray inuu ka jawaabo wuxuuna wariyaasha Soomaaliyeed u soo jeediyay inay iyagu u baaraan xogtaasi ugu dambeyntii afhayeenka madaxtooyada qaranka ayaa sheegay in dowladdu ay ballan qaadayso in dhalinyaradan inta ka nool dalka dib loogu soo iyagoo tababaran oo dalka anfacaya dadka iyo dowladda Soomaaliyeed xilli ay uga baahi badan yihiin ma jirto maanta inay helaan 5,000 oo wiil oo tababaran waa la keenayaa waalidiinta Soomaaliyeedna oo ay ka warhayaan caruurtooda inta dhimatay waana la keenayaa inta nool ayuu yiri Cabdikariin wuxuu sheegay in madaxweyne Xasan Sheikh uu amnigu ahmiyad gaar ah u leeyahay isla markaasna askarta ku maqan Eritrea ay muhiim u yihiin qorshaha amniga ku soo dabaalida dalka ee madaxweynaha geesta kalena Cali Guudlaawe ayaa dagaal ku dhawaaqay xilli uu dib ugu laabtay Jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ilaamiyay guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab madaxweynaha oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa kulamo kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka afhayeenka madaxtooyada Hirshabelle Daawud Xaaji Cirro oo soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha kadib warbaahinta kula hadlay Jowhar ayaa sheegay in Cali Guudlaawe uu madaxda qaranka kala hadlay laba arrimood oo kala kow gurmadka abaaraha iyo dagaal lagu qaado kooxda Al-Shabaab afhayeenka ayaa tilmaamay in labadaasi qodob ay madaxda qaranku ka ballan qaadeen Cali Guudlaawe inay kala shaqeyn doonaan maamulkiisa isagoona sheegay inay howlgalladu ay hadda ka bilowdeen gobolka Hiiraan madaxweynuhu wuxuu kulamo muhiim ah la soo qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan ee madaxdu uu kala hadlana waxay kala hayeen in dadka reer Hirshabelle abaarta looga gurmado iyo in deegaanada Hirshabelle laga bilaabo howlgal lagu cirib tirayo kooxda argagixisada ayuu yiri Daawud Xaaji Cirro wuxuuna sheegay in caqabadaha ugu weyn ee maamulkaasi ku hayaan Al-Shabaab sida aad ogtihiin howlgalku wuxuu hadda ka bilowday gobolka Hiiraan gobolka Shabeellada Dhexena wuxuu howlgalka ka bilaabanayaa dhanka Cadalle ayuu hadalkiisa ku sii daray afhayeenka madaxtooyada Hirshabelle maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka oo garab ka helaya maamulka gobolka Hiiraan iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaana ka tirsan waqooyiga gobolka Hiiraan halkaas oo laga saaray shabaab deegaana ay ku sugnaayeen waa siduu shaaciyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan وهاجي داود يلي مكان waxaanu eegaynaa IGAD waxa ay war ka soo saartay colaadda sii horeysa ee Itoobiya iyo Suudaan urur goboleedka IGAD oo ka hadlayay xiisada colaadeed ee u dhaxaysa Itoobiya iyo Suudaan ayaa ku baaqayn in labada dal isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficilada sii kordhin kara xiisada ururkan oo ay xubno ka yihiin labadan dal ayaa sidoo kale waxay u soo jeediyeen madaxda labadaasi wadan inay si firfircoon u raadiyaan habab diblomaasiyadeed si xal waara looga gaaro arrinta ay isku hayaan
baaqan ayaana imaanaya iyadoo arbacadii uu gudoomiyaha guddiga midooda Afrika ugu baaqay Itoobiya iyo Suudaan inay bilaabaan wadahadal ku saabsan muranka soodinta. Itoobiya iyo Suudaan ayaa hadda midba kale ku eedeynayaan daandaansi kaas oo ka dhashay dhacdo dad lagu dilay xuduudda oo dhacday isbuucii hore. Suudaan ayaa waxay go'aansatay inay dacwad rasmi ah u gudbiso golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka dhan ah Itoobiya, halka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumaddaasna ay go'aansatay inay si degdeg ah ugu yeerto safiirkeeda u fadhiya Itoobiya. ciidamada Itoobiya ayaa hore iskaga fogeeyeen eedeymahaasi loo jeediyay ee ah inay dileen 7 askari oo Suudaan ah oo maxaabiis ahaa, ayagoona dhankooda Suudaan ku eedeeyay inay daandaansi military ka wado Itoobiya. si kastaba Itoobiya iyo Suudaan ayaa muddo dheer ku muransanaa xuduudda Al-Fashaxa oo ah dhul barwaaqo ah oo ay la degeen beeraley Itoobiyaan ah oo Suudaan ay ku andacoonayso inuu ku jiro xuduudeeda. si kastaba waxaa jirta baqdin xoogan oo ku aadan in dagaal xoogan uu dhaxmaro dowladahani, waxaana dhanka kala socdo dadaal ay wadaan wadamada Afrika ka oo ku aadan in xiisada lagu qaboojiyo. laakiin Suudaan ciidamo badan oo ka tirsan dalkeeda ayaa dhowaan weerar ku qaadeen deegaanadaasi la isku hayo, taa oo keentay inay ciidankaasi gubaan isla markaasna dilaan qaarkood ciidamo Itoobiyaan oo ku sugnaa deegaanada muranka xoogan uu ka taagan yahay. inkastoo Itoobiya aysan tallaabo jawaab ah bixin, haddana dhankeeda waxay ku eedeynaysaa Suudaan inay weli wado daandaansi. Itoobiya ayaa iminka waxaa ku furan buuq xoogan oo ka haysto gudaha dalkeeda, iyadoo weli la tacaalaysa dagaalka kaga furmay dhanka kooxda Tigray iyo sidoo kale dhibaatooyin ka haysta qoomiyadda Oromada jabhada ka tirsan. waxaana la ogeyn qaabka ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu wajihi doono xalinta dhibaatooyinkan adag ee ka haysta gudaha dalka Itoobiya iyo weliba wadamada dariska la sida dalka Suudaan. guud ahaan daawadayaal wanaageensa warkii oo aad kala socoteen Hubaal News, fadlan daawade haddaad nagu cusubtahay nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada ee wararka aan ku baahina channelkan. aragtidiinana halka hoose noogu reeba, muuqaalkana sii share gareeya, laagtiinana waa inoo dhiirigelin. waana ku mahadsantiin daawashadii la socodka warka channelka Hubaal News.